waxaa dhacday waqtigii taabiciinta ayaa magaalada la yiraahdo Basra waxaa joogi jiray nin taabici ah oo la yiraahdo Kabis ibn Rabi'a ninkaas waxaa la yiri nabigu aad ugu ekaa sallallahu alayhi wasallam كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم نبي شبهي أو أبو أكا نكان أنس بن مالك بالي مركو نكا أركو وصحابي جليل كاي خادم كالنبي أها وإلمين جري ما قاسوا حوليش النبي كان حسوستي صلى الله عليه وسلم هير عبد الله بن عامر أو أهواليك بصرة مسؤول كبصرة ومعاوية وراق وقري أو معاوية مقالة بصرة وحانا لجوغا نين نبيغا او اج او ددكي اي كفدنوبين او قف كاسته او اركا نبيغا حسوسنايو صلى الله عليه وسلم معاويه وحو نينكا اي سو دير نينكي با لا ديري وحو اداي شام او marka ahayd meesha rugta ama salbiga muslimiinta ahayd dal aaday معاويه oo sariirtii geerida ku sugan oo dhimanayo sakaraada buu ninkii u soo galay kaabis baa u soo galay markuu arkay buu Muawiya soo booday wuu istaagay markaasuu ilmeeyay markaasuu madaxa ka dhunkaday markaasuu wuxuu yiri ma arag qof nabiga shabaha sallallahu alayhi wasallam oo kaaga eg ma arag sababtoo ah waa ninkan waa nin aalubeedkii nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin nabigu aad ugu eg yahay Muawiya wuu ilmeeyay wuu farxay wuu soo dhaweeyay ninkii dhul buu siiyay oo dhulkaas ku intifaac oo qaado waxa isweydiin leh maxay ninkan dadku markay arkaan u ilmeynayaan waa jacayl nabiga ay u qabaan inuu xasuusto nabiga kaliya buu qofka saxaabigu ilmeyn jiray inuu xasuusto kaliya buu ilmeyn jiray bilaal aadaankiisa markay maqlaan Allahu akbar bay ilmeyn jireen waxa kamid ah tusaalayaasha jacaylka saxaabadu ay nabiga u qabeen sallallahu alayhi wasallam inay jeclaayeen nabiga in ka badan inta ay jecel yihiin caruurtooda iyo xaasaskooda iyo aabayaashood iyo hooyadood iyo xataa naftooda iyo maalkooda iyo guryahooda ay nabiga ka jecel yihiin sallallahu alayhi wasallam dhowr tusaale baan soo qaadaya Abu Bakar radiyallahu anhu markuu nabigu hijroonay oo godka la galay godkii intuu nabiga uga hormaray buu godkii hagaajiyay oo uu godadkii gufeeyay oo uu awday si nabiga aan bahal u qaninin ilaa wuxuu gaaray si ahlu siyarku sheegaan godadkii markuu wada awday qaar soo haray maradiisi intuu jeexjeexay uu ku gufeeyo oo ku awdo oo labadii kalena uu labadii salugood ku awdo oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu dhabtiisa ku seexiyo oo markii bahal uu qaninay godadka ku jiray حتى إنه دقاقه وديدي سو النبي قنحن إلى المدي كدادنيسي أي نبي كنت فقدي ومرك النبي إلى أبو بكر ومحاكو ودعي ولا يقنين رسولك إلهي مكاسو ماشي كما صحي وحين غسي أسوأ ولي لقنين أكله وحكسي أبدا مرك جدك كجرين ومدينة السعودين نبي أبو أركي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومر كهر مريا ومر دب كمريا ومر مدك كمريا ومر بدح كمريا مكاسو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومحاكو ودعي markaasuu rasuulka ilaahayow horay baan ka socdaa markaasaan waxaan xasuustaa bi dadka gadaal ka iimaanayo raacdada markaasaan gadaal maraa markaasaan waxaan xasuustaa kuwa jidgooyada oo naga horeeya markaasaan horay maraa markaasaan waxaan xasuustaa kuwa dhinacaan maraa meel uu ku sugnaado buu waayay jacayl uu nabiga u qabo iyo difaac uu difaacayo nabiga sallallahu alayhi wasallam waa namuudaj iyo qiso cad oo cadaynaysa jacaylka ay u qabeen نبيك صحابه رضوان الله عليهم وحي أركان أما تابتان أما أي مقلان أما أي كشيكيان نبيك أوجع عليه صلى الله عليه وسلم وحفيرنا إن قصة عجيبة ما كم إذا أيام النبي منبر كفولي أصدق خطبيني صلى الله عليه وسلم وحال يري النبي مالين تو انتي دور بري مالين أما اللي بري بيكور ريسيبه دهن أهل السيرك يا رواد قصة وري معناه أما الله دور بري كهر بي أهل مركي النبي قل أنت صلى الله عليه وسلم النبي قل وخذ بي وحي أيها الناس ضروا من كنت شتمته أو ضربته أو آذيته أو أخذت منه شيئا من مالي فليقتص مني قبل ألا يكون دينار ولا درهم ضروا قف كستو إذن كمدا أو مالين أن قراعي أو محكو نفتل
ama aan dhibaateeyey ama aan caayay ama maalkiisa wax ka mida aan ka qaatay intuu istaago ha iga qisaasto oo ha iga aarsado inta aan la gaarin maalin uusan jirin shilin dahab iyo shilin diinaar oo midna maanta waa adduunyo laakiin aakharo ma awoodo inaad iga qisaasataan inta aanan dhimanin xuquuqdiina igala haro iga qaata buu nabigu sallallahu alayhi wasallam nin baa soo booday dadkii ka mid ah wuxuu yahay aniga rasuulka ilaahay iyo saxaabada way yaabeen waxay dhahan saxaabadii markuu nabigu yiri qisaasta intay dadkii oo dhan madaxa hoos u dhigeen oo lugaha dhexdooda gashadeen ayay waxay bilaabeen inay ooyaan oohin ilaa la maqlay oohintoodii isku wada darsantay hinraagoodii ilmada ka qubanaysa nin baa istaagooya aniga rasuulka ilaahay markaasuu yiri rasuulku soo istaag saxaabadu waxay dhahan intaan ilmadii iska tiray oo naxdintii naga badatay baan idhi ma nin baa nabiga ka qisaasanaya nin baa soo istaagay علي باسوبودي رضي الله عنه سوي رسولك الله علي القصاص قصاص أنا هلا يغفريه أنا كقاضية والنبي أهل كيسي صلى الله عليه وسلم عباس باسوبودي وحي رسولك الله أنا كقاضية أنا هلا يغفريه أنا هلا يقول وشك وقول علاهد أنا هلا يقول عضو مركز النبي يقول ما علي القصاص قصاصته أنا جاي دوش شيء هاتي يا كعدالة بدن نبي صلى الله عليه وسلم يا كعدالة بدن يا كان حريص بدن يا كأخلاق ونعسن فيري والنبي الله وقف الدون ككدل صعد قفك وقيمها بدنا ورسولك إلهي وحبيب الرحمن وخليل الرحمن مركزوله إجا أرصد وحي أن إذا كسمعي إنك ما أنت حقوق دي دتك بان لك العررينا أو مدح لأنه لك العرريسا أو شعب كانوا لك العررية أو قفك قف أن دل ودليا أو قفك قف أن دل وقبيلكم أجيا أيقون هير كاسي جارين markaasuu ninkii istaagay ninkii markuu soo istaagay waa nabigu wuxuu Ukaasha ibn Muhsin ma Ukaashii aan u duceeyay inuu ka mid noqdo 70,000 ee jannada galaya cadaab la'aan iyo xisaab la'aan baa ninkan raba inuu qisaasto siha rasuulka ilaahay waa runta laakiin maalin baad adiga oo dagaal ciidanka safaya يا قول كلده إيجا شقيسي وين حنوجسي حق يجيب أنو بعنا سبحان الله صحابة قول كيبا كويا هذا مركزون النبي يقول أشي أن صفك كسر في جري هلا كانوا أشي بالا كانت ولو ديبي وحير قصاصه الصير وحي شيئان تو النبي يقول استعجب وأشي قلقلي صحابة يفيرنا يعني وحي رسولك إلهي ومرضى فيد نبي يقول كليدي ومرضى كفيدي ماشو كله فتي انتو أشي توري سوى المينية والنبي كسا فار صدي أيو كليدي كنم كذي كشمي مركزوي رسولك إلهي بأبيك أنت وأمي ونفسي نفتيدا يهو يدي يا أباهي هلوغو فرتاء ما أنت وحان فهمي إني حالد في عينين وحان فهمي وقتي اللي جرو إنه سوقت في عن أهين بفهمي مركزان وحان سيربو يري قفك قدام بيو أو جيركي سو تابت جيرك النبي قاعد نقطت أنت سان ربي بي مركزان صحابة أوهين تيهر أوهين كدرن بي أوهين مركز أي فهمين صحابي كان واحد وربي إنه سمعيه ما دعي كرتا جعيل كالنبي أقبت إنه هير كاس جارو صلى الله عليه وسلم